lacagta kuma iibsan kartid farxad, haa waa run, laakiin waxaad ku iibsan kartaa guri aad u qurux badan. Qasriyada iyo guryaha waaweyn waxaa sahlan in la arko si fudud, oo xataa maabka ayaa soo qabanaya. Kulligeen waxaan wada jecelnahay waxyaabaha qarsan. Waxaan idin hayaa 5 guri oo ilaa iyo xad la isku dayay in la qariyo. Number 1, Norwegian Mountain Cabin. Sida la wada ogsoon yahay, naqshadeeyaasha guryaha mar walba waxay isku dayaan inay soo odorosaan wax ku cusub bulshooyinka. Sida aad ka aragtaan sawirka gurigan ku dhex yaala buur dhexdood, waxa uu ka samaysan yahay geedo alwaax ah, qaybta kore oo dhir ah, iyo dhinacyada oo dhagax ah. Number 2, Barn Conversion. Gurigan kale marka korka laga arkayo waxaa loo maleeyaa baqaar lagu keydiyo cawska beeraha hareerihiisa ku yaala, laakiin maaha waa guri qasri ah. Markaad gudaha u sii gasho, kuraasta dhex taala, nalalka aadka u quruxda badan, ma ahan mid si fudud loogu soo dhex baxayo. Underground Town, sida magacaba ka muuqata, waxaa loogu naanaysay magaaladii ka hooseysay dhulka. Guryahan oo ku yaala waddanka Australia waa meel tuulo ah oo qarniyo ka hor lagu qodan jiray macdanta, haddase waa magaalo yar oo dad yar ay ku nool yihiin. Nambarka 4, Desert Living. Ku noolaanshaha saxaraha dad badan oo adduunkan ku nool aad bay ugu adag tahay, halka kuwa kalena ay ugu raaxaystaan inay ku noolaadaan sida gurigan oo kale oo buur dhexdeeda laga dhex dhisay, waxayna ku taalaa magaalada Utah ee dalka Mareykanka. Fallout Shelter. Guryahan idiin muuqda oo ku yaala dalka Jarmalka waxaa la dhisay markii uu socday dagaalkii qaboobaa ee Soviyetka, waxaana loo naqshadeeyay in looga dhuunto hubka culus ee nuclear-ka, waxaana ku diyaarsan maqaayado, gym, iyo meel lagu dabaasho. Haddii aad jeceshahay muuqaaladan oo kale, qaybta hoose noogu sheeg. Muuqaalkan like saar. Waa mahadsantahay. Thank you.